Koox carruur ah ayaa marayay kaynta markii ay arkeen geedka guriga oo u muuqday mid cusub. Geedka guriga wuxuu ahaa mid duug ah oo geedo iyo xadhkaha daboolay, waxaana jiray jaranjaro waxyar burbursan oo ku toosan albaabka. Carruurtu aad ayay u xiisaynayeen, waxayna go'aansadeen inay kor u fuulaan oo eegaan waxa ku jira gudaha. Markii ay gudaha galeen, waxay la kulmeen adduunyo cajiib ah. Geedka guriga waxaa ka buuxay buugaag, alaabta lagu ciyaaro, iyo waxyaabo kale oo xiiso leh. Carruurta waxay bilaabeen inay ku ciyaaraan geedka guriga, iyagoo iska dhigaya inay yihiin burcadbadeed ama geesiyaal difaacaya boqortooyo. Waxay ku raaxaysanayeen khayaalkooda iyo ciyaartooda. Geedka guriga wuxuu noqday goobta ay ugu jecel yihiin, meel ay ka helaan farxad iyo nabad. Markii qorraxdu dhacay, carruurta waxay dareemayeen inay heleen meel gaar ah oo had iyo jeer qalbiyadooda ku jiri doonta.